دب تي في هدونا قانتان مواقع هاي مر أبي عجبية خلدي برتن كيسة وضعها برتن كيسة باجفتيا اللي انكسر دنيا لمنك برنامجك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشعب الصومالي اليوم بتقطع بقصة هذا دب تي في برنامج ولا هذا أما برنامج كان ما تقوم هذا فول تو فول أما فول كفول لما هالجماعة مهمة ووين تاريخ هالجماعة مختبر كل أي مرتين موجودين إن هالجماعة القصة هذا دب تي في لبنان أو لف سودوينتا كسكو برنامجك waxay la daadihinaya Muqtaar Basay iyo Guleed Qaasim oo baada dab TV oo muddo barnaamijkaas ka shaqeynayay barnaamijkan uu ka duwan yahay barnaamijyadii kale aan sameyn jirnay waa barnaamij taariikhi ah waa barnaamij ka hadlaya mustaqbalka barnaamijkan ayaan muddo dheer baa sugayay ducaynayay in reerkani ay dhab wada hadlaan la yiraahdo Soomaali galbeed dhab wada hadlaan niman la yiraahdo kumada kala weyne dhab ay wada hadlaan niman la yiraahdo ogaadeen niman la yiraahdo Maxamed Subeer ay dhab wada hadlaan in ilaahayna gaarsiiyo mahada dhalinyaro ikhyaaray hadaynan dhalanteed dhabayaasha daan dabagaale dhalanteedka ahayn barnaamijkan jaamacadda cagaaran magacyo badan bay u taqaanaa guul waxay nagu horeysaa inaan dhab wada hadalno oo la fuxana misanahay in lagu aasaasay mugdi 3,001 minus okay ikhyaartaasay walow aan ka jeclaa laba nooc oo la faaska keentay WSNF ragii gobonimada soo hooyay iyo ragii gunta soo hooyay in aska hor keentaan mugdi iyo intiif aska hor keentaan udgoon iyo qurmoon aska hor keentaan qalal iyo ubax aska hor keentaan okay on la fuxa lagu aasaasay 3,001 minus mugdi haddaan example siiyo markab tu socda balweynta Hindiya goor habeen oo roob da'ayo roobka uu mugdisan da'ayo uga cabsida badan da'ayo markabkuna socdo badda dhexdeeda qolka ugu hooseeya rag ku shiray oo qalbiga mugdi ka ah garashada mugdi ka ah khibradda mugdi ka ah in khasaarihii soo dhacay 77 iyo 60kii aan xigmad ka qaadan oo emotion ku kiciyay ba asaasay taa waxaan idinku darayaa jabhadda badankeeda ragii ku biiray ee u taqaanaan halgamayaasha kuwa kamida kuwa dhabay ka ahayd Maxamed Ismaaciilka isagu kuwa dhabtay ahayd okay laakiin kuwa badan oo kamid oo saaxiibadii waxay ka xanaaqeen 77 gobolka Soomaali galbeed yaa haystay Allahu naxariisto Cabdullaahi Bede dhanka Ethiopia okay waxaa dhanka Soomaali galbeed xukumayay Cabdullaahi Xasan Maxamuud Allahu naxariisto labada nin oo labada meelood kala xukumaya rag ka xanaaqay baa jabhadda buumi ka dhigay rag ku qabaystay 300 oo qof oo shacabkii xoreyn lahaa ku qabay isku dilay baa buumi ka dhigay oo ku soo biiray Maxamed Ismaaciil inuu goobta yimaado oo la wareysto aad baan ugu faraxsanahay waxaan isku hawada joognaa Australia waxaanu isku baranay Algeria anigu 77kii waan yaraa laakiin Algerian ku ogaaday wixii dhaxmaray Cabdullaahi Xasan Maxamuud Allahu naxariistay inta jeer ay suicide u sameeyeen jabhadiisu dil Maxamed Ismaaciil waxaan rabaa isaga Cabdullaahi Xasan wixii dhaxmaray inaad wareysataan markuu jabhada asaasay iyo inta suicide ay u sameeyeen inaad wareysataan Maxamed Ismaaciil iyo Cabdullaahi Xasan maanta qodbu ku jiraayeen wixii dhaxmaray Algeria safiiradii ka horeeyay mashan bay ahaayeen safaaradda inuu soo galo mamnuuc bay ka ahayd intaan ka warhayo baasaboorka looma jeedin maalintii u horeysay ka tagay Algeria laba cisho joognay ayaa darawalkii Jazaa'iriga ayuu Cabdullaahi Xasan intii kaxe soo qaaday Maxamed Ismaaciil goobtaas aan ku ogaaday wixii dhaxmaray walow waxa qaarkii iga qariyay okay baasaboorkii wuu jadiidiyay okay wuxuu iswareysteen iyo waxay istilaaheen iyo wuxuu ugu jawaabay okay isaga afkiisa ka maqal haddaba jabhad lagu aasaasay emotion oo lagu aasaasay say ragani madax u noqonayaan labada nin kaliya ma aha rag badan oo Soomaali galbeed u dhashay oo madaxa dawladda Siyaad Barre oo afar jeeble kamid yahay oo kamid yahay gulwada kamid yahay oo wasiirkii waxbarashada Cabdi Qaboor kamid yahay oo gamca dheere kamid yahay
raggaas oo madax ka ahaa meesha oo Soomaali galbeed ahaa iyo say madax u noqon karaan rag ka xanaaqsan baa jabhadan aasaasay haddaba jabhad xukun nimankaasi xukun xornimo keenaya ma keenaya marka waxaan jeclahay maxaa Ismaaciil inaad isagana waraysi ku saabsan halkaa ka qaadaan aniguna intaan ka warhayo iyo wixiina dhaxmaray Australia aad ka qaadaan haddaydan idinka laftiinu daan dabagaal ahayn okay next time waxaan rabaa inaad iska hor keentaan kuwii jabhadda aas-aasay qurwada iyo kuwii jabhaddii sharafta lahayd ee WSNF waxa ka nool in la iska hor keeno face to face halkaasay ku jirta xaqiiqada dhabta ah hadday 60kii wax ka nool yihiin sidoo kale ikhyaar dhalinyaro dhab TV giftigaas qalbiga ku soo diri waa inagii wada hadalay daadiyaha barnaamijka caawa ina daadiinayso barnaamijka ku dar haddaan kuu soo diraya ku dar su'aalaha tan mar kalena waa inoo ballan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu